السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا إسماعيل عبد الله فرح markaa waxaan doonayaa inaan ku yar noqdo haddana shaqaaqadan bariga yartaa ka taaganaya laascaanood ama gobolka oo dhanba oo imka sud yahay dee aad moodayna fawdaba yahay oo macnaha iyo deegaanka iyo dadka meesha degan oo ka dhigay oo mas-uuliyaddeedu in la lumiyayo dee halis ba ku tahay iyo argagixisooyin lasoo barakiciyay oo iyaguna inala saayiri weliba ilaahay naga hayay oo intaa meesha lagu jira konton jeer ba qarxi lahaa sidaa darteedna dadka waxa weeyaan waa reer laascaanood waxa weeye laascaanood waa deegaan weyn waana caasimadii sool sidaa darteed baa dhaarta dhaweyd haddana waxaa ka dhacday shaqaaqadii ka dhacday iyo banaanbixii ka dhacay waxaa bulshadu ay dalbatay in ciidamadii qaranka laga saaro waa lala qaatay oo laga saaray iyadoo dadka iyo maatidan iyo carruurtan iyo calamada lagu soo maray deetana ku kiciyo lura ku yaaca deetana saan laysugu khasaarin oon laysugu dhimanin baa looga saaray markii ciidamadii qaranka la dalbaday in laga saarana waxaa lasoo geliyey ciidamadii puntland iyo jabhadda wareegaysa oon iyadana xil saaray afar waxa ku noqon gaadhay al-shabaab marka heerkaasay tahay ciidamo mas-uul kama ahayn bay noqonaysa oo mas-uuliyaddii iyo deetana nabadgelyadu waxaa lumiyey dadkii meesha deganaa deegaankii marka halisaacankaasna in lagu xisaabtamo ayaa yar qurux badan oo waqtiga lagu xisaabtamo iyo wacyiga la jaaqado lagu xisaabtamo fiican oo nacaybshaha iyo deetana indhihi iyo dhagahaba wax tirin baa meesha yarta ay ku wanaagsantay waxa yar kala laba markaa meesha bulshada deegaanka meesha ku maxasta iyo carruurta iyo dumarka iyo magaranaysaa iyo hantida iyo dumarku ay u taalla iyo nimanka duulimaadka dibadda ka soo duulaya weliba aad moodee xoola ku qaateen lacagay ku qaateen isweydiin aanay lahayn inay jirto waayo meelaha ay gaadhsiiyeen oo maanta marxaladii dilka iyo hadraawiya halkii waa la dhaafiyey taa waa la dhaafiyey markaa waxay meeshii noqotay markaa dee waxa weeyaan qarankii in la dumiyo ayaa dadna duulimaad lagu yahay waanu dumi laayahay unbay noqonaysaa laakiin looma yaraysa bay noqonaysaa taasoo ah marka weliba la eego wax halkaa maanta gaadhsiiyey oo deetna dhibaatada intaa legiyo dee magaraysa nacaybshaha intaa leg meeshii lagu gaadhaana kama dhicin meeshii kamana jira bay noqonaysaa weliba waxa lasoo celceliyaa snamtii iyo kolka horeba xoog ayaana lagu qabso ciidamadu ama somaliland ciidamada qaranku naga baxaan wixii weliba reer laga dhigay isaaq laga dhigayo waa snamtii iyo isaaq wax naga baxaan iyo snamta naga baxday taagantii weliba iyadana lasii qayqaybiye la doonayo halkaasoo aad moodeen lagu yar rafanayo markii lasoo galaba ninkii ugaas iyo ninkii suldaane sugan ninkii boqore soo galaaba judhaba wuxuu ka soo khudbaynayaa nin waliba wuxuu soo marayaa garowe oo aan wax halkay somaliland ka taagan tahay ma qarannimada soomaaliya jiritaankeeda aan dee isweydiin lahaa ninkii soo maraana fariinta uu sida la garanayo iyo waxa loogu soo ballanqaadiyo waxa lagu soo dardaaray la garanayo de ninka halkaas soo maray wanaag mooyaan xumaan mooyaan wanaag ka soo jeedin taasoo weliba maanta ay ugu dambaysay ninkii xalayta hoyday garowe oo maanta marti u ahaa axmed karaash oo heerka uu taagay laga arkayo muuqato wax muuqdo la garanayo yahay iyo eriyadiis waxa ahaan la ogyahay ninka maanta usoo hoyday halka axmed karaash xalayta martida ku ahaa ayaa wuxuu kasoo talaabayo maanta uu ka qudbadaynayay tukaraq markaa ninkaa dee cidda meesha ugu yimaado caafimaad qabta mooyaane isaguna caafimaad la soo gelin kaa waa la arkaya macna xumaan mooyaane wanaag gudina wada dareensanna waa garanayna iyaga waxaanad moodaa inaan nimanka caankaasi waaweyn waxba meesha ka joogin oo wacyiguna maanta waa adag yahay abaaraa jiro oo maati baa jirto oo dumar baa jiro oo carruur baa jirto oo cudurraa jiro oo waxaa jira colaado kale iyo argagixisooyin baa jira markaas yaalaha barkood dadana in dee wax la qiimeeyaa yar wanaagsan oo la miisaamo laakiin rag fara badan oo taa miisaamin baa jira oo dumarka iyo carruurtii oo khasaare iyo faa'iidaan kala garanay waxaan ahayn deetana dee ugu sacabaynaya iyo dhib iyo deelqaaf ugu sacabaynaya inta calan lagu maray deetana buluga sidaa darteed waxay noqonaysaa oo lagu yar rafanaya kolka horeba waxaana lagu qabsaday xoog ayaa snm iyo isaaq iyo kolka horeba iyo snm baana qabsatay nimayo snm baan nahay kolka hore haddii aanu hayna dad iyo dunyaba waan ka baxnay dalka waa la ogaa oo maxnaa waa ramasa iyo daroor iyo abokor iyo baleyele iyo hartasheekh iyo intaaba deetana waxaan ka galnay quxunti baan kaga jiray dadka iyago waxba halkan nagama hadhin qoys wala halkan ka qaxo maanta ka qaxay somaliland ka qaxo kaga qaxnay hargeysa iyo berbere iyo gabayaan ka qaxnayna qoys walba laba qof ama saddex qof baa kaga dhintay oo si fool xun loo diloon meesha ka qana baaqi baa wax halkaa tegay oo dadka saa loo damqay bahay sidaa darteedna marka la leeyahay sanad baan qabsatay xoog baa marka hore la qasay heshiis bayna dilamaan gelinayo idinka wax iska qortayna annaga waxa weeyaan sanad baan nahay waa dhab laakiin markii dalku uu xoroobay macna nin in dheer garada
oo inankiisii maanta sulaadiinta maanta uu ku jiro dee halkii oo inankiisa dee maanta siduu haddii ka fariidsan odag macna odag aabihii halkuu galay sultaan halkuu ka hadlayay iyo wuxuu garanaya dee inankiisu ma garanayo markaas ninkaas oo fariidaya waxaa inoogu yimid waqti uu wato markaa beligubadle sidaa darteed baa uu soo jeediyey isagoo anagu marka halkaa nabadgelyada yaan la kala aargoosanta uu ka hadlaya anagu ubad iyo carruur maanaan wadan uxuntiyaanu kaga nimid rag baan nahay meesha jabhada cidda uu ka hadlayeyna waxayd maanta waa cidda reer soole soo celcelinaysa waxa weeyaan cankanaysana maana xoog baan u qabsatay cidda uu uga hadlayay inay sidaa maanta quruxda badan u noolaatay uu doonayeyna waxay ahayd ciddaa maanta laascaanood kadib moorinaysa iyo ugaasyada iyo boqorrada maanta halkaa iska soo shubay sidaa darteedna wuxuu odagaasi naga dareentay suldaanku waxa naga dareentay wuxuu deetan naga duraantay in deetana la iscafiyo oon cidna laga aargoosan oo deetana saasi dalkii deetana dalkeenna iyo dadkeenna aanu saa ku dhaqanno oonu deetana ku dhaqaajino waxa la wixii meesha ka dhacayna leeyoobo maanaan ku xidhin marka anagu deetana maatidayadii carruurtayadii axmagaratidii oo maanaan odhan dee annagu aanu soo weydiino sida maanta kontonkan ama lixdankan ina boqorka iyo ugaaska iyo halkan laasconood ka bixi qawlolaweynta halkan isugu timi maanta qaabka waxa yaalaa ka soo baxaya maanaan odhan aanu quxuntiyada tagno dumarka iyaga iyo maatidayadii aanu soo weydiino dadka ma cafin aynu dhahno maanaan odhan halkii baanu kula qaadanay kuwii dantay gacantaa loo dhiibay waxaa nugu daray haddaad cabdiqani tahay sultaan cabdiqani waxaad dhulbahantay baad annagana noo tahay baanu ayaanu ku tabakalay mahorkacoo saasuu nagu hogaamiyo ilaa ingiriiska geeyani somaliland soomaaliya ka go'day isagaa geeyey tanna go'aamiyey ujeedkii meesha uu ka lahaana annaga waxbana lagama xasuuqayno dumar iyo carruur maanaan wadan waanu garanaynay saa maanta nimanka meesha kasoo buuxsamay u hadlayaane ugaasadan iyo boqorradan iyo deetana shir bay ku jiraan taagati ee maanta dumarka iyo carruurta maanta deetana wax magaratida khasaare iyo faa'iide aan kala garanay intuu caalamka buluuga lagu maray wixii iyagu ay gartaan baa lagu dhaqaaqayaa taagan maanaan odhanin waanu garanaynay haddaynu quxuntiyada ku xidhnoon ku noqono inay odhanayaan cidna yaan la saamixi waanu garanaynay oo waa dumar iyo carruur dhibaato iyo hadib halkaa kaga qaxo tagfi iyo qabadi aanay u dhalan ba deetana ayaa la baday inaanu wanaag ka soo baxayn waanu garanaynay maanaan odhan kumaanaan xidhin isaga wixii ka soo baxay baan la qaadan waxaanu isu soo taagnay haddaa sultaan cabdiqani tahay waxaad dhulbahanta tahay baad annagana noo tahay u tahay sidii cabdiqani baa markaa deetana saasaa somaliland lagu dhisay bariya galbeedba ogolaansho iyo raalli ahaansho iyo saafgarad baa lagu dhisay waxaana hogaamisay ciddii meesha aanu dadku meesha kama wada bixin intii aanu meesha kaga baxnay wixii maanta deetana ay garatay waxba kamaanaan bedelin cabdiqani halku dhigay min maanta waxba kamaanaan bedelin annagoo jabhad ahayn oon deetana maanta jabhad ahayn ayaanaan u dhaqmin maanta waxna laga cawdo oo macna dawladda imika faraha haysana tiga dhexeeya deetana tii dawladdii duntay iyo tiraadaana macna jiritaankeeda iyo muuqeeda iyo dhaqankeeda intuba xaaraan bay idinkaana maraka xilna ma saarayn iyadoo dawladdii deetana qaranka deetana aqoonsiga iyo dimuqraadiyadda haysatood shicib dad iyo dunyaba lagu aaminay ayaa deetana waxay samaysay xasuuq iyo kufsiga way samaysay annagoo jabhada maanaan samayn oo ma geynaa nagu waxa annagoo jabhada aanu xilna saarayn oo kiisna aanu qabteen waxay samaysay maanaan samayn ilaa maanta si nadiif aan weliba karkaan ayaan cid walba haynaa markaa taasi caynkaasi ahaydoo wax xoog lagu qabsaday iyo nidaamkuna shaarkii aanu xidhnay snmteenu kusoo hawlgalayna waxaa naga saaro beligwada naga saaray sultaan cabdiqani baa naga saaro shaar sibila noo xidhay welikii baan xidhana waanula soo geli lahayn taa marka haddii aanu sultaan cabdiqani noo imanin dee maanta boo camal laguma murmeen iyo garowa midna laguma murmeen oo hadal kama taagnaadeen inta waanu istaagi lahayn intaanu jiirno meesha jiirno ayaan dhowr jabaayo garbahaare iyo bahashi magarasa garbahaare ayaan kasoo goosan lahayn daaqadaha iyo albaabada intaba cagtaan mar lahayn maanta muran kama taagnaadeen halkan sidaa darteed baanaan odha xuduud baan tugaynaa tii cabdiqani aanu qaadno idinka ka mas-uuli xuduuddeena maanaan gaadhin soomaalina qaad waxna kumaanaan falin markaa taasaasaanu ka ahayn oo soomaalida kale aanay yeesheen ayaanu kaga wanaagsannahay dardaaran oo baahnay kana dun wanaagsannahay anagoo dhibaatadii hadiimaasani kadho intaana gaadhay haddayna idi gaadhay oo maanta aan naga guulaysataan sidaanu yeelay maydaan yeesheen taa laakiin waxay meesha taalla idinka laftiina isku noqotaan oo wixii annagana xidha dadka qabtaa inuu idi qabto iyo inaad soo sheegtaan inaad idinku xilbayda saarayn annagu intaasoo arrimood baanu qaadan ku xishoonay haddana wixii in lagu noqnoqdaa lagu rataana taa lafteeduna gobonnimo kama muuqato oo haddana labada gelinba deetan nadaafad iyo gobonnimo iyo asalnimo laabtaa u garcadan labada gelinba arrimaha noocaas aanu yeelan haddana ku rafataan ku noqnoqotaan oo ka been sheegtaan taasi waa mushkilad bay dhigteeda markaa reer laascaanoodda waxa layaaba waa dhulbahante nima yowen waxaa meesha jirta markaa shir baa jiray kolka hore waxay gujada iyo nidaamku naga socday gujada guudaan bay naga socday tanna maanta way ka xoog roonto dhowr meelood baa iska barkatay oo dardaaranka laga bixiyo dhowr meelood baa iska barkatay oo deetana shir baa lagu soo qabtay etoobiya jigjigaa lagu soo qabtay kaasina shir dee dhulbahanta muuhayn inuu ka balaadhan yeli meela su-aala barkood aanu taabana uu diidanahay shir ka balaadhan buu ahaa kaasina waxyaalaha lagu soo qabtay munaafaqato shir dhagaraysan buu ahaa
ولا سووا الوالي وحنا way ku dambeeyaan jigjiga waxna halkan la keenay wixii jigjiga ku dambeeyay waa iltabaan uu suuxsay inta halkan way ismuujisay way laacday sidaa darteedna aniga waxay ila tahay markaa shirka halka lagu soo qabtay iyo dardaaranka noocaasi haddii dadna tihiin sulaadiintii iyo boqoradii iyo simadii dhulbahantaadkii maanta dalkeena iyo dadkeena ma dhaqdo waxyaalo badan eega oo deegaankii waa idin dhanbi deegaanka eega maatada eega dumarka eega abaaraha eega caafimaadka eega argagixisooyinka eega deegaankana hadayicina ila waa lagu kala yaaci doonaa hadday dhibaato iyo hadima ka dhacdo waa lagu kala yaaci doonaa si u degtaana waa adkaan doontaa markaa deegaanka ku xisaabtana wixii dadana maanta xukuumaddii iyo SNM baan haysata iyo tanna ma haysato SNM iyo isaqtoona meesha ma haysato xukuumadani wada dhisanay oo Soomaaliland saraakiisha hogaaminaysa waa dhulbahanta wasiirada ugu bulahanta badan ugu codka weyn iyana waa dhulbahanta kuwiina waxa laga soo horjeediyo lagu sheegay dadana kelmadaha aflagaado waa horgalayax baa lagu sheegay waana nimanka dadana asalnimad ay asalka weeyaan kama kacdada weeyaan laf dhabarta weeyaan oo waxyaalaha barku dadana ma gaan kuwa wanaaga iyo walaaltinimada deganaanshaha dadkooda ka damqanayaan waa kuwa horgalada lagu sheegayo kuwa horgalada ku sheegay carruurta iyo dumarka dadana ku qajiliye daba taagan waa kuwa dadana la isla jabaa diyaarka wala lacagtana ku soo qaatay ee dumarka iyo ciyaalka iyo barakaca iyo xoolaha nagu yiri inta yar kale oo baabiyo doonta dhulkana meesha uu ka baxaya marka waxyaalo badan in ay ayagtaan maanta yar miisaantaan oo maanta haddii aad deetanatiin macnaha ismada halka isugu midiyo ee maanta dhulbahantii halka isugu keenteena ma jirto deetana ma jeerteena mu keenin gadabuursina mu keenin si isaaqna mu keenin hawiyana ma ururin inta ile waa kama dambeyn waana laf dhabartii asalnimana iyo labada gelib waxaad laabta u garaacdaan iyo gobannimo iyo halka wixii ka soo baxo aa ka fiirsataan inaan degdegin oo aan idin nacasoobin taas intiina soo ma garanaysaa meesha isugu timid nin qari hana casoobina colaad iyo dhiila iyo nacaybsha iyo wax meesha yaalo halka wax gaarsiina ma jiro dumarka iyo carruurtina gabigood waxa oo qaniisiisa adowgan iska dhicin adowgaas oo teetana ciidamadii Soomaaliland iyo dadka lagu sheegay wixii isaaq iyo lagu sheegay dadna isaaq lagu sheegay SNM haddii bilmetalba ka soo qaado ay tahay adowgiina lama yihiin adeer garkaanu idahayna intaanu bariyaan nalama bariyana nag taayir haddaan gubna shan qof baa ayaa ku dhimanay haddaan laba gubnana waxa oo toban baahay haddii dadna urtana nalagama dawmarinin raaligelin iyo xabaalaqod iyo doomaray midna lagama siinin garkana cidinaba hay markaas siyaarihiin dadna wax wadaan imka garow haddaan tagno on 500 qof keenno on dhexdiisa kana dhahna waxa ka soo eegtaa dhul baande garowan dadna dad u rayda waxaanu ka dhaxlay garow ciidamada qaranka ana laga saaray ciidamada Puntland maxaa u malaynaysan ma soconaysaa ma laga saaraya dadna ciidamada ama ka soo jeeda Soomaaliland gudaha ma gelin kara ilaa waa soo gelisan wala soo geli haddana weli dulqaad baa sheeganaysaa xukuumadii dulqaadnaanba ayaa ku tiiraabaysan oo ku tilmaamaysan maxaa laga yeelayaa 500 been halka lagu dilayay ma isweydiin bay leedahay xaqna waa loo leeyahay weli in la dilo 500 been lagu dilay garow ha ka saaro ciidamada naga saara oo dadna fawdada aan dadna geed walba waxaan dadna aan raali ka ahayn ka sameeyno deema yeelayaan marka dalkii gabigiisii iyo gobolka gabigiisa oo fawda ka dhigteen fawdada ka dhigteen dad kale nala ciyaar doona wacyiguna maanta dadna waxaan wax shaqeynaya maaha shirkan dadna halka la soo nin maanta waxa liyo dadka nimankana wax soo weydiisayna halkan dadna jigjiga ugu tagtana waa nimankii fadhatadii Hargeysa laga fadhateynay nimankii ibna dilaalintii wax weydiisay waa dilaalin wixii fadhatada halkan ka guray ee dilaaliye ibnay kaan ibnayna waa kii lagu dhalay nimanka maanta wax soo weydiiseen ee nasteexa ka doonaysan labadaas iyaguna qaybsanay waxa la suuqa nimanka wax soo weydiiseen bilalqadii iyo wixii Hargeysa iyo burcaba laga qaaday iyo berbera waxa la geeyay jigjigo lagu iibinayo waa suuqa bilalqada iyo Hargeysa yarba jigjigo gudaheeda imka la yiraahdo alaabtii kula baxday halkan la guriyay wax naga saamaxay yiraahdo meenaar nimankaasina tiiba hadana doonayaan waxba la noqoto la noqoto hadana maanta dadna meel ina faraxo bari kaliya ku agtooda ku cunaan 40 sanood ka soo waa nimanka kaliya deedeeyay 40 sanood ka soo wareegeen halkan ay ina faraxo ka cawdo wixii wax jira ma hadar waa niman waxa doonaya faratada ayaguna halka ka doonaya ka baxman Soomaaliland marka aniga waxa ila tahay arinta si qurux badan ha loo galo waxa dadna dalka idahayna maanta waxa agagaraho cusub hadda ay tahay suurowdo teena samaanta afka kala soo dhalatay ta laga soo horjeedana waa horumarka Soomaaliland gaadhay rag iyo dumar midna laga xigo dadna taasoo 200 sano kan soo samar oo idbaa meesha deganideen maanta marka afka kala qaaday ku galgashana waa yar deel qaaf weeyano meel agagaro dadka la yeelaba lafteeda waxa noqonaysa waxaan idii anfacay inaan wixina dadna ka sii jeedsana waa gaf waa idin la baryana ciidamada qaranka waa wadaleen dalkana waa wadaleen ubadku waa naga dhaxaynaya meel walba wad baa lagu korinaya maati iyo agoon baa lagu korinaya marka dadka haleeyo
ونمك قولوا لوين تي ما أنت تتحل كاس السوق هذا نينكي سوق بديه قالوا وكسر تمر كسر تكرر قط بديه يابا وحكي شلة تكون هذه كان تمرك بعضيه نين نصدق كشقين يابا ماشي سوى مجرين لكن وحلو أنا أنت كلام ماشي تجني يعني لا يتكون قال بلا يباس دم عيسو تيجان كيني جيت كيني يروح كيني بودي ترسي وايستا marka sida aynu degan hayo saka quruxda dhul baan hadii aanad ka maarmeen la tan maaha hadraawo wa dhaafto wa ka tagta halkii hadraawo Soomaaliland ma doonin inay taaganta ismadii maanta sii joogeen waxay kolkay ay taasna iyaguna ku dhawaaqeen 15 sanadood laftooda intaas halkaas noo dhaafi lahayd inta ban caybshan ku saxan kuna soo toosinayna ma aanan ogeynta marka maanta 15 sanadood aad ku bogsan weydeen maanta lafteed caafimaad badan leedii kama yeegayo balse waxaan anigu leeyahay maanta nimayo diminta hada ka maarmoodaan marka la ka dhigto maanta ka daayay idinku ku danaysanaya oo dalka u daneynaya oo dadka u daneynaya halka wax leedii ka soo dhig tigtigana iyada gurmad u baahan wala saya tigtigiyada gurmad u baahan iyada gurmad u baahan tigtig yani marka halka dadka waxay ka soo yiri iyaga gurmad u baahan bil wixii ka dambeeya waati dadana sheegay wala isla soo qaxay doon ceelka shiilaabo illa isla soo dhaafan waxba hayn waxa kala doonaya halkaas nimanka tigtigada waa lagu soo maqayay dadana Itoobiya halkaas nimanka ogaadeen waxa weeyaan markii ceelasha shidaalka shiilaaba laga helay waxa lagu yiri dadana 5% qaata maanta marka la soo jeestay shantiina lama ogolo wax la idin oranaya deegaamo dhan baa burburo maqal laga dhisaya 50 sanadood litiratu ku baydhay baa soo socota shantiina ma helisaan waa waxyaalo soo socday weeyaan marka waxay dadana noqonaysaa waxa halkan beeshinana sheegaya ahda dambe way dishaa dadka ahda dambe way dishaa faraheena ku jirtaa waqtigii dadana meesha lagu deel qaafayay ee dalkaaga lagu galgalanayay waa inuu soo samiray maanta waxayna dhalaya maanta afka kala qaaday haddii aad ulbatantii rag iyo dumar baa dhalinyar taatiin tantu idii ka dhow ma jirto waan idin daba joognaa teenan deetana halkaa ku daateen furaha berbera qaata intaas aan idin la barna idina wax cusub aad diidaysaan iyo caalam buluuga xasan sheekh oo dahaysan xasan sheekhna uu idin dhameystiro wixii xuduud baa ku jirtaano dawladda Soomaaliland baa ka taliso idin yiri caalamka buluuga kor u qaada sanana kalgacal iyo muxubaana idin ka hayna uu dareemaya kaana shalay baa xasan sheekh caalamka buluuga hoos joogay markii kolba diyaarado ay ku goosan gaadhisay caalamka buluuga boos soo halkaan laga soo madaxtooyada farmaajo ku jira laga soo ayo ciidanka gorkor laga soo istaariyay marka laga soo istaarana marka waxa la soo galiyay isgoyso waxa weey ciidanka gorkor buha waxa haramcad abdibala la soo istaaray waxa la daba joogsanay baajaaj laba baajaajkii la daba joogsanay darawalkii iyo kii garab fadhiya labadii madaxa laga toogtay markii la yiri loo email war maxaa u sheegateen waxay yiraahdeen wadada jaamahayd waan ku banaysanayn idinka marqaad ka ahaa kumeedaa sheegay dhacda foolxun iyo xasuuq midda kumeedaashii marka xasan sheekhna wareerkan uma jeeda maanta oo berigi meesha uu ka tago farmaajo ku wareejiyay al-shabaab 5,000 baa ama 4,000 baa maantana 20,000 buu ugu yimid waxba lagama qabano idinku marqaatiba ka tii filla Soomaaliya dabadeed waa lagu qarxiyo 200 qof baa 200 qof baa hawiyahay ciidamada gorgor iyo haram cadiyo duufaan waxay taagnaan iskooyska iyo xamar gudeeda labada galin baa xayisiinayay dadkana waxa lagu leenayay ummadii loo soo jeeday bulshada iyo shacabkeena waxa lagu leenayay marka wiin filla Soomaaliya dabadeed lagu leeyahay 200 iyo 160 baa ku dhimanay dad maanta oo dhan Soomana ayaa halkay ku afurayeen intay dadana ku afuray halkay ku afurayeen bisaa ku cunayeen ayaa loogu imanayay iyagoo aan ingiliis iyo dadana military midna hayba bartay ku afureen lagu qarxayo arkaysan lagu qarxay xukuumaddu kama gilgilin 20,000 baa laga dhigay marka 20,000 iyo qodaxdii farmaajo uu ka tagay ayuu xasan sheekh guraya warkana ka sheekanaysa in diil qaafkana inaan dad iyo duuyo mid daba la ku hadlayn karno markii labaad buu ku eegay taa waxa daliilu idinku yiri xasan sheekh wani weyn markuu ku soo baxay habla afduubteen habla idinku maqnaa rag baa layseen dad baa xasuuqdeen labada gorgor iyo haramcad isku iska baajaajkaas lagu tooganayo wadada jaamahayd oo ku banaysanayni sida fudud baa wax loo laayay marka macnaha beriga dadkan agtiina qiimo ka ahayn fara badan oo hawiye ahay waana ka bixi waa meesha ka saartaa badoonis hadaba hawiye maanta maxaa malaynaysan hawiye dhaarta qaabka ah maanta ma laga daba hadli karaa waa maya xasan sheekh wuxuu doonaya meesha oo horumar buu doonaya eelashiisu iska qodanaya shidaalka badiisaasoo kalunka guranaya wuxuu iska qodanaya qalabkiisa iyo dadana digirtiisa iyo nidaamkiisa iska beeranaya wuxuu ku taamaya wareerkan uma jeeda iyo kaali Soomaaliland ku soo hortano halkan boqonta iyo faraqa qabsay wuxuu ku taamaya inuu Uganda iyo Kenya ba dhaafu doonaya 2 sanadood ku dhaafo horumar buu ka shaqeynaya idina wareer baa ka shaqeynaysa 60 kiin isku daba wareegto ma doorsa halkii isku meersataa dhigteen ba doorsa iska daba wareegto marka waxaan ka sheekaynaysaan iyo dadana calanka buluuga la nagu leeyahay ujeedka la geliyo waa kee mana hariiraya maanta markay Soomaaliland noqotana xasan sheekh weeyane wuxuu ka maqnaa meesha 6 sanadood 6 sanadood bay isagu ka qayb ahay uu nagu eegay 2 sanadood maanta wuxuu dareemay dadka teetana in luqaasha iyo caamada bale inta wax ka badan inaan la caburi karo laga laalaadi karo uu dareemay xasan sheekh
labiyo soddonka wax ka badan markaa Soomaaliland xasan sheekh waxa uu taraha joogtay wax yeela maanta uu geysanaya ma jirto waxba kama doonayo waanu idin dhamaystiray idinkuna walaalayaal marka aan ka noqoto hadduu meesha uu soo qorto qolo lama aqoonsanayo waxa weeyaan layno aqoonsan meesha wax kale maanta inta laga dubaaxiyay waa horumarkaas oo kaliya waa la dhaafiyay hadraawe iyo dilka iyo waa laga kixiyay halkay maraysa waa arkaysan iyo dil qaafka iyo fawdada meesha ka taagan eriyadu caankayin waa laga kixiyay halkana dadana reer habu tirinine maanta wixii maanta dhalaya ay ka faa'iideysto furaheeda qaato in haga oo idinku dalkan iyo dadkeeni baaga tii laga gilgilanaya maaha marka uqaashan iyo dadana maanta iyo xagan iyo dadana waxa dadana ay taagan tahay halka ku ururaysan la casoon aad laascanood ku ururaysan madaxtooyada ku urur wixii u jeeday aad leedina meesha ka dhamaysta ee aad tabanaysaan idinka abaal balad ku qaba inta walidik aan hadina shicibiyada dawladda walidik aan hadina karka leedahay ilma adeerayaal dadana ka badbadinna ha ka badbadinna waxa waliba uqbiya aqil u leeyahay ha ka badinna maanta ma qaadi kariyo deegaankeeni dil iyo deelqaaf iyo qax iyo baraka ma qaadiyan neefna inagu harimaayo dad iyo duuba saasay suraacaysa marka halka intaasaan soo galay laga daayo adana isma haysato dhalinyartana laga daayo cadawga meel walba waxay la taageen cadawgaan iska cilinayna cadow baan iska idima hina adeer cadawga karkaan dahayna idama nahaynan karka tan oo tirinaysaana maanta dhul bahanta hogaaminaya xukuumadda iyo militariga dultoga labadaba dhul bahanta hogaamin idinkaale meelihim halka wixii ka soo baxay maanta dadana halkan laga dubaaxinayo sheetaa waxay in la naga dura maanta dhalaysa horumarka meesha ka joogay berbera waxa ka taaganayo caalamka Mareykanka iyo saldhigga Mareykanka ku weenayo madow iyo cadaanba halkaas isugu imanay inta laga dubaaxinayo waa inta cid laga duminayana waa shicibkan iyo reedkan iyo dumarkan iyo dhalinyarta maanta soo joogay iyo mustaqbalkoodu dadana maanta afka kala qaaday yahay waa inta lagu duulayo waa inta ragga ku duulaya sheetaa kala hadlaya dibadda kala hadlayana waxa weeye waa lacag bay ku qaateen iyo nin cadaawad isaga dhashay adeer yaala ka gurina waxa ee meeshan idinkaale laascanoodu kariyo ma Hargeysa lidii marka halka waxaan leeyahay tiriibka hal laga daayo oo warbixinta halkaas uqaasha iyo sulaadiinta iyo boqorada iyo ugaasida laga sugayo waxa weeyaan qurux badan aan noqoto dadana isqabashale maadaama kontonka isugu timaadeen Soomaali magaceedu maanta idinku eegay afarta dhab waalidka eegay wali inta in lagu isugu timid maalmaana waru jecelahay inaanay daan simbirxan oo foolxuma aanay ka soo bixin intaas uga soo tala haday waxay ka maqan yihiin tiina liqa hawa halkii burdaafka laga sameeyay ugaasimadu waa canka marka dadana waxaan leeyahay halka hal laga yar fiirsado imika gacanteena ku jirta afkiina ku jirta insha Allah bilaabkan sida wanaagsan Allah idin waafajiyo sida wanaagsan inuu caloosh ka doonino Ilaahay idin waafajiyo cidna ma nibcin nacaab salama hayo in ma garan sareed deegaankiina lagu hayo dadkiina lagu hayo cidima nabca marka waxaan jiriyaan la ruuxinaan maanta la soo qaadinay dalkeena iyo dadkeenaba idinka ka taliyo afkiina maanta ku xiran tahay wixii inoo ilaaliyo oo maanta wax qurux badan ha ka soo baxo wixii tabasha ka buuxsada waa ku raacsan oo garab taagan xukuumadda dhan baan kalana wixii deel qaafa ama tabasha laga tabanayo ama waxay dood saami ha ahaato ama waxay nadaab kala ahaatee in wixii laga tabanayo xaqiina noqda tan shicibahanahay idinka garab taagan si qurux badan oo wadadii hal soo maro hal laga daayo dadana oo dagaalamana waa lagu jabayataa idina waa jabdoona deegaankuna saahanay dad iyo diibar oo lagu kala kaxaya xoolana ma haysanaba abaara iyo nadaamay aan kana marka dadka deetana jijiga heedaya ka cunaya iskaga cunaya iyo nimankii 5 iyo 10 sano nacayb soo halka ku hayay adeer yaala ka gurinayaan in ugu duuri si qurux badan baa nooshi nabadgelyaduna waa qaali lama hayo marka intaas aan soo galay wixiina aan ku faraadeegno uqaasha iyo ugaasida iyo waxaan jecelahay si qurux badan idinka leedka dhul sugaya wax wanaagsan oo dadka iyo dalka ba raali galiya hayda ka soo baxo ficilka oo bilmeter oo kale ninkii kolka hore dhan kale ka taagnaa waxaan jecelahay inaad ka tanaasusho xaqii aad iska taagtay hore xumaydba bilmeter xaqii aad ka taagnay ka tanaasul xaqqa wanaagsan iska taago koow ka bilaaba waxba inama hayaan hana uga tagin xukuumadda wixii deel qaafa meesha ku jira waa idin garab taagana marka dalkeena iyo dadkeena badjo wax wanaagsan ka soo baxo oo dadka idinku ku xiriya dadka dejiya habeenkii meesha aad gasheen dumarkii iyo carruurtii wadada aad taagteen calanka buluuga ku marteen qadad damba ma karsano wali wadadii si u taagay wadadii si u joogaan oo sidii ba dhargii faraal laga qaaday reerihii ku albaabadii ku xiriyin aqal warbi ku qufulay marka arinta ankaas ayaana idin la fudaanay guriyaha ka gasheen ee maanta hebel uu noomaqay waxa ka idgaarsiya ma karin niman jaaniskan doonayo bilmeter oo kale ruuxay Puntland baa maanta boo ama iyo dadana tugaaraqayna ka dagaalanta doonisay military ahaan waa u yaabashay marka u yaabashay waxay adeegsatay dadana kacdoonkan kay ku dagaalamaysa waa kacdoonkan iyo buuqan iyo qaxarkan danaheedina xageediba ka wadanaysa marka kacdoonkan iyo weligeed bana wuxuu ahaa dhulbaanta wuxuu ahaa ood iyo deyr buu ahaa xoolaha oo lagaga ooda waraaba ood iyo deyr buu ahaa marka dadana tii ay adeegsan maanta Chinese way hesho Chinese waxa weeyaan iyada cirka ku maray waa ku guuleysatay ujeedka ilahay
markaa waxaana maanta xooggiisu waxaan naga yimid galbeed buu ka soo baxay oo deetana ay halkaas aynu tirayni laakiin kan lixaadkan iyo munaafaqadan iyo cadaawadan iyo foolxumadan waxay naga soo baxdo galbeed bay u jiibsatay maanta galbeed bay u jiibsatay tani marka arrintaa halkaa galbeed u jiibsatay oo ay halkaa ka gashay deetana ku naqado ayay deetana Jubbaland halkaa ka soo gashay halkan jidkay ka gasho isweydiin ma laha marka arrintaasina iyaga laftoodana waxa weeyaan waxyaalaha horena way ku maqayeen dhibaatada iyo hadimada iyo maatada iyo agoonta iyo dhibaatada waxa weeyaan laguma guubaabiyay kuna kala baxa oo waxa weeyaan waxa ka odayn hadaad galbeedtiin waxa ka odayn waxba idima wanaagsan nin walba saadubadkaaga iyo reerkaaga u jeceshahay ee dadana dhibaato iyo hadimaad ula nacabtad 8 habeenimo albaabka soo xidhaad u leedahay kuwan kale ula jeclo qolo waliba aan ka sii doosa meel walba dumar baa lagu koriya caruur baa lagu koriya maati iyo agoon iyo dad wada baahanba oo saddex waqtiyaad doonaan waqti karsanaya jireen haddana kii haddaad tidhaahdo intaad lacag ku soo qaadato durduriyood ku durduriso dee lagaga tegi maayo wixii meesha ku dhintay idinkaa qaban marka halkaana ha laga fiirsadeen taageeray gacanteena maanta ku jirta idinka ku jirta ayaana idinla fududaan marka waanu dagaalamaynayo qoriga hala qaatay iyo halkaan ku dhawaaqaynay waxba lagu dhawaaqay idinla fududaan intaas iyo waxa noo soo gurmanaya deetana daarood baa soo gurmanaya deetana halkan naga xigaayo waxa laga soo gurmanaya Ethiopia deegaanka Soomaaliya laga gurmanaya halkan iyo idinla fududaan waxay ugu soo gurmado balaayidi ma haya intaasaan u soo galay xagaa iyo maanta inaynu wixii ilaashano nacaybshaha iyo colaadana laga saaray afxumada dhalinyarta iyo dumarka la geliyay iyo nacaybshaha iyo cadowga iska celiya cadowgaana loo soo raacay horgalle cadow hor yaacay cadowgii baa la iska saaray wax iyo inay dumarka iyo carruurta iyo maatida aanay deetana macna fara badan lahayn oo wixii la faraa ay qaadanayaan waa dumarka iyo carruurta inay waa nimanka waa dadka lagu leeyahay laascaanood baad ruuc ku xoraysan ruuc baa ku xoraysan ciidankii qarankuna 240 kilomitir ayuu ka dambeeyaa إذا اعتنكوا إلوب وضمر كان قصارية في إيدك لكن تذكر عن كاسو كلام ماتدا يلا توخنوا يجنا عند جوجل ديلكو دي دبعتدو دي ديكو دي يدرا حول يران دبعتدو دي هدمة دي ما أنت ما متحرات ليدي وكبنا الله يكبنا الله على الدنيا وتثني دبعتدي هدمة يدكون كوريوس كصاحرته هذا أنا نقدر نسوي ذي أنا كصار واقع الدولة تنقل واقعنا مركزي وشقين سا إلا هو برير تاسي مركز حيال عن كاسو كلا وبان مركز لك دكتاتك مرويدا انت سامسو كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.